dowladda maxaa u priority ah xukuumadda u socota. Waxaan rajaynayaa in fariimahanaga already waa la helay, shacabkuna way ogyihiin. annaga iyo shacabka waxaan moodaa inaan inta markaan aan dareemayo inaan isku page kana maxaa jira markii hore aan isku page ahayn oo isla joognay dad oo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo ka hadlay markii ugu horeysay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen meelo ka mid ah dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in ciidanka Liyu Booliska ay muddo kooban ku soo afjareen weerarka kaga yimid dhanka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha oo kulan la qaatay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa sheegay in guusha ciidanka Liyu Boolis ay horseedeen taageero kaga yimid dhanka shacabka, gaar ahaan haweenka ka soo gurmaday magaalada Jigjiga. Ciidanka la daba taagna biyo, cunno iyo wax kasta ay u baahanayeen ciidanka. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in haweenka Soomaaliyeed garab istaag u muujin doonto ayna ka mid noqon doonaan golaha wasiirada. Dhankooda looga baahan yahay in ay u diyaar garoobaan la dagaalanka argagixisada. Hadalka ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare ayaa ku soo aadaya xilli dowladda Soomaaliya ay ka aamusneed weerarkii Al-Shabaab ay qaadeen meelo ka mid ah dhulka dowladda deegaanka Soomaalida. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam ayaa magacaabay wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno iyadoo la isku bedelay wasiiro qaar si loo dardargeliyo shaqada loo hayo shacabka. Wareegto ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa lagu magacaabay 2 wasiir iyo 2 ku-xigeen, kuwaasi oo kala ah 1 Cabdiraxmaan Cabdi Axmed, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga; 2 Axmed Xasan Cumar, wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka; 1 Faarax Mukhtaar Daa'uud, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga; 2 Maxamed Cusmaan Jaamac, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka. Fadlan haddaan ugu cusubtahay nagu soo biir, like inoo saar, saaxiibadana la wadaag, YouTube-kana subscribe inoo saar, like inoo saar, noo soo share gareey, saaxiibadana la wadaag si aan u helno saaxiibo adigoo kale ah, dhiirigelina noo noqoto. Mahadsanid.